qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta si adag u taageeray saldhigga military ee laga dhisay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ay ansixiyeen labada aqal gole ee Somaliland golaha guurtada iyo golaha wakiilada Somaliland odayaashan ayaa waxa ay sheegeen inuu saldhiggan military wax badan u tari doono Somaliland waxaana yiraahdeen annagoo aan awdalana kala hadin waxaan ku taageersanahay ansixinta ay saldhigga military ansixiyeen ayaa si buuxda u ayiidsanay waxaan maanta halkan isku nimid inaan taageerno saldhigga Berbera laga bixiyay ee xukuumaddu bixisay ee labada gol ansixiyeen baanu taageersanahay haddaan nahay gobolka Awdal oqaashiisa salaadiintiisa iyo madax dhaqameedkiisa oo dhan aad iyo aad baan u taageersanahay saldhigga military ee laga bixiyay xukuumaddu ka bixisay dekedda Berbera si mid iyo miisaan bale yaan u taageersanahay haddaan nahay oqaashii gobolka Awdal waxa weeye abaartana Allah inaga soo jabiyay haddii la kuuri waxa loo sameeyaa in saldhig baa la bixiyay saldhigaasi wax badan buu soo kordhinayaa waxaan ku faraxsanahay sida sharaf kale ee golaha u ansixiyeen iyo sida loo soo agaasimay ay isweydiiyaan dib ha uga fiirsadaan leh waxyaabaha lala soo joogsanayo shaashadaha ee waxba laga xishoonay dhammaantii halka maanta waxaan iskugu nimidnay inaan taageerno saldhigga Berbera ee ay saxeexeen labada gole ay ansixiyeen ee aqlabiyada ku ansixiyeen ay sida sharafta leh u ansixiyeen kaasaan horta haddaan gobolka Awdal nahay taageersanahay reer Awdal wuxuu hiddo u leeyahay nabad iyo wajah hagaagsan buu had iyo goor hiddo u leeyahay isagoo oonan madaxdiisa iyo dawladdiisa ka horman iyo hiddo u leeyahay tii baan wadnaa maantana tii oo nagu ku dhagcadnahay tii baan wadnaa tuu kala fanqooqda ma lihi annagu waxaan si mugla u soo dhaweynaynaa ummadda dalka ama ciidan ha keenaan ama ha keenaan shirkad ha keenaan wixii dalka wax ku soo kordhinaya marka mowqifka ay labada gol gaadheen ee madaxweynaha iyo madaxweyne xukuumadda maanta haysata ay la timid boqolkiiba boqol baan taageersanahay madaxda aan dooranay inaan deeqa dareen qabno dalkana ka celino xaq ugu leeyihiin sidaan u dooranay ee loo dhaariyay wixii ay keenaan dalka aanu ayidno dawladdu wixii ay gaadhay ee labada gol gaadheen in la taageero oo dadweynuhu taageero Soomaaliland oo goboladu taageeraan yaan iskugu nimid annagu gobolka Awdal haddaan nahay waan taageernay waxaan ka hadlaynaa oon taageeraynaa go'aanka ay soo saareen labada gol ee qaranka waa Berbera oo la yiri saldhig baa laga sameeynaya saldhigaasi boqolkiiba boqol baan taageersanahay annagu aad iyo aad baan taageersanahay xukuumaddu go'aankii ay soo hordhigtay golaha wakiilada golaha wakiiladuna si aqlabiyada ay u ansixiyeen ayaan horta aad iyo aad halkan ugu hambalyeynaa si kastaba ahaatee cuqaashan iyo waxgaradkan ayaa saaka si rasmi ah u taageerayay saldhigga military ee laga dhisi doono magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waa Shucayb Maxamed kan Shucaybiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.